dhibaatada ugu badan oo naga haysta waxa weeye in sanad walba gobolka Mudug uu ku haro waa trafiin waxaa sabab u ah kow naadiyaasha ka dhisan gobolka Mudug tobanka naadi wasaarada ka ah labo macallimiinta loo xusha qaranka saddex kabtanka qaranka loo magacaabo iyo guddiga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنو ونكسن دقيستيال ميل كستو الدنيا كتشوكتان كسو دوادا برنامج كيني عيارها عاو وحا مرتي واه وان جنل كي يكو ورستي عبد الرشيد علي فارح وكم مقعدير عبد الرشيد علي قود يرانتي سيينو كسو بلاوة عياريستا كبدا عكتا دقمدا بورتينلي markuu soo caga dhigtay magaalada Gaalkacyo wuxuu magaciisa maamuus ku sameystay kooxo badan oo ka dhisan gobolka Mudug kooxdiisii ugu horeysay uu u ciyaaray waxay ahayd kooxda Sixa oo haatan loo garan og yahay ama loo yaqaan magaca Meeska wuxuu kaloo u ciyaaray kooxaha kala ah RBS STG iyo Homboboro wuxuuna koob la qaaday kooxdiisii ugu horeysay uu u ciyaaray ee Sixa oo haatan loo yaqaan magaca Meeska sidoo kale magaalada Boosaaso kooxo badan oo ka dhisan iyadana waa uu soo ciyaaray waxayna kala ahaayeen kooxihii uu ciyaaray Cabdirashiid Cali Qood 447 dowladda hoose Golciise iyo Horseed joogdheerahan xoog badan kana dheeri jiray daafaca waa ay ka duwan tahay sheekadiisa ciyaartoyda kale wuxuuna wada xirtay funaanadaha labada magaalo ee dhanka ciyaaraha ugu tunka weyn oo kala ah magaalada Gaalkacyo iyo magaalada Boosaaso sababta ku kaliftay isagoo looga yeeray xulka Mudug inuu doorto xulka Bari isaga ayaa wareysigiisa idinkugu faahfaahin doono wuxuu kaloo carbaabay sababta xulka Mudug afar dhamaadka ama group stage-ka ugu horaan inay tahay iyadoo wareysigiisa ayuu ku sheegay daafacan mayarka adag shaxdiisa riyada cidda uu qaatay isla cidda uu ka tagay noloshiisa inay soo jaheen weeraryaano badan waxna kala tagi waayeen wararkaas iyo warar kale oo badan ayaan idinkaga hayaa Cabdirashiid Cali Qood ku soo dhawaada channelkayga Hanfade Production haddii aad ku cusub tahay channelkayga fadlan ii saar subscribe wixii su'aalaha oo aad weydiin lahayd fadlan igu reeb qaybta commentiga aad ayaad u mahadsantahay ku soo dhawow channelkayga Hanfade Production waa dhawahay Cabdiqafaar walaal magacaagu saddexan iyo halkii aad ku dhalatay magacaygu saddexan waa Cabdirashiid Cali Faarax laakiin dhalinyarada sports gobolka Mudug waxay yaqaanaan Cabdirashiid Cali Qood waxaan ku dhashay degmada Boortile وهاجد عبد الرشيد واحد يجا ورنتها يرانت هذه كوبا عكتها halkii aad ka soo bilowday عبد الغفار waxaan yaraanteedii kubadda ka soo bilaabay degmada Boortile waxaan noo sheekay taariikhdaadii Boortile taariikhdii Boortile dhallinyaranimadii sportska degmada Boortile waa meeshan ka soo hana qaaday oo aan baroniga ka bilaabay seerabideedii halkaasna waxaan ugu guuleystay koobkii seerabida naadi ana u dheeliya magaca la dhaho SBI aan ku guuleystay وهاجد kadib sidee kugu suurta gashay inaad ka mid noqoto kooxaha waaweyn ee seerada Boortile ka dhisan ama cid ka caawisay ma jirtaa way jiraa dhalinyaro badan ay caawisay oo aad u tiro badan وانا ماشي عن كسر على هذا ماشي اسمه قرد رجي سوعة ويوحى كم ذا صنافة نرجع كري ضيح وهذا
dabcan burtinlana waa deganeed magaalada gaalkacyo ee gobolka mudugna waa imaan jirtay magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug sidee kugu suurta gashay kooxaha gobolka ama seeraada gobolka mudug aad uga mid noqotay cabdi qafaar walaal waxay igu suurta gashay gaalkacyo waan deganaa waxaan u dhiri jiray xaafadda inji kobsirabiya oo aan xaafadda inji ku qaadnay kabacdi koobka markaan qaadnay aniga dhalinyaradii saaxiibaday ahayd oo xaafadda igala tirsanaa isla koobkii aan qaadnay markaa u dhammaaday waxaa jiray nin la dhihi jiray ina xarfe oo iga caawiyey inaan seeraada soo noqdo oo iga yeeray markaan koobkaa qaadnay kabacdina ciyaaro saaxiibtinima idhiirasiiyey oo saxa markaas koojo ahaa sidaasaan seeraada gaalkacyo kusoo gala imise koox ayaad u ciyaartay seeraada gaalkacyo waxaan u ciyaaray yamayska sixa bcenter oo hadda magaceeda ku dhasho hombabaro iyo RBS wax koob ah yaa kula guuleysatay wax koob waxaan kula guuleystay naadiga yamayska adigu booskaada saxda aad ka ciyaarto waa xagee waxaan ka ciyaaraa difaaca dambe lambar 4 afarta dambana waa wada qabtaa oo bidix midig labadaba waan ahay laakiin booshiska ugu badan aan kubadda ka dheelo waa lambar 4 xulka gobolka mudug ma laga yeeray waa laga yeeray imise jeer 3 wax ma ka xasuusataa ciyaarihii xulka gobolka mudug haddii aan leed koobkii Puntland iyo koobkii gobolada Soomaaliya haddii aad ciyaartay kulmadii aad deeshay wax ma ka xasuusataa koobkii Soomaaliya oo Puntland lagu qabtay koobkaas mudug ma dheelayn laakiin waan ka xasuustaa ciyaarihii gobolada Puntland oo la qabtay 2008 oo ciyaaro aad igu leh saameyn 2008 inta kubadda dheeray saameyn igu leh ku soo wax nooga sheeg ciyaarahaas 2008 markii lagu qabtay caasimadda Puntland ee Garowe 2008 waxaan isu group noqonay Laascaana iyo Boosaaso groupkii waxaan uga soo baxnay 4 dhibcood baan group uga soo baxnay ciyaarteedii igu xamaasada badneed waxay ahayd oo aan dheelnay ciyaartii aan la dheelnay Laascaano oo saaxiibkii iftaax tartan ay ugu roosanay raadkaanbeedii hore anagoo weliba nala ku leeyahay 2 hal ciyaarto ay tahay allahu naxariistay macallin Ilyas oo ciyaartaas waxa weeye kaambeeyada dambe aad noogu khamradeeyay isbedelka garoonka ka dhacayna uu saameyn u ku lahaa waxay ciyaar aan weligeeyay inta noolaa aan marna qalbiga ka go'an aan ilaawan ciyaartaas wahagaag markii aan ciyaarta ka gudubnayna waxaan u gudubnay 4-4 waxaan ku dhacnay Nugaal Garowe taasna waxay ahayd mid aan weligay iyadana aan qalbiga ka go'an ciyaartaas maxaa nooga sheegi kartaa ciyaartaas cabdi qafaar waxay u baahan tahay inaan ciyaartaas faala dheer ka baxsho laakiin qodobka waxaan maleeyaa gadaal iga weydiin ka mid doona maleeyaa maxay hadda waxay weydiinaysaa ciyaaraha iyo inta soo baalkiistay magarad wahagaag meel ka baxsan gobolka mudug ma ka soo dheeshay adigu waa ka soo dheelay waxaan ka soo dheelay gobolka Bari waqtigee bay ahayd u soo ciyaartay adigu gobolka Bari waxaan ka dheelay 9kii iyo 10kii waxaan u soo dheelay 4 kooxood waxaan u soo dheelay dowladda hoose gobolka Bari iyo gol ciise iyo xalo Kismaayo oo loo yaqaan 447
maadaama aad kooxaha gobolka bari aad u ciyaartay ma isku dayeen xulka bari in lagaga yeero maamulkooda? waa la iga yeeray 2009kii baa la iga yeeray anna waan aqbalay yeeritaankooda. maadaama gobolka mudug u ciyaari jirtay dabcan bari kooxaha ka dhisan aad u dheelisay adigu ahaan ma aada dareemin miya in xulkaaga gobolka mudug ay ku baahan yihiin? waan dareemay sanadkaas waxaa watay gobolka mudug allah u naxariistay shiina dheere iyo baa watay weliba shiina dheere allah u naxariistay uu isoo waxa uu ila soo xiriiray kelmadu wuxuu ugu yidhi ahayd aanan weliga ilaaweyn qof qadiyad lama tiimbiyaa hadalkaas jawaabtiisiina waa sii waxaan ku yidhi gobolkaygu ilaa ay ka baxdo nin jeclaysiga iyo naadi hebel ay ka baxdo ma tigsan karno oo ma aadi karno inaan gobol kale ka hortagno sabab maxaa yeelay weli waxaan ku jirnaa naadi hebel iyo nin jeclaysi marka waxaan ku yidhi waxa ka qurux badan inaan lacag ka raaco ilaa gobolkayga qadiyad kama go'no inuu koob qaadee. marka bari sidaasaa ku dooratay? saasaan ku doorto ugu dheela. maadaama ciyaartooyda gobolka mudug saaxiibo dhow aad aheedeen ayagu naftirkooda kulama hadlin miya? way jiraan rag ila soo xiriiray ila soo hadlay sida maxamed nairobi oo kale waa ila soo hadlay inkastoo aan si fiican uga jawaabin markaasna uu kabtankayga ahaa magarad. waa hagaag intaas markaa ka gudubno yaraantaadii daafac ahaan kuwaa ku dayan jirta adigu? waxaan ku dayan jiray qaadir ale. maxaad ku dooratay qaadir ale? waxaan ku doortay qaadir ale waa experience iyo waxaan ku doortay xamaasadda iyo dhiirigelinta iyo baleyrinta weerarka u ah sida uu macnaha waxa weeye uu spiritka u geliyo. hagaag maadaama ahayd daafac adigu kumuu ahaa ninkii kugu adkaa noloshaadii aad is wajahdaan dhanka sportsiga gobolka mudug? allaha u naxariistee wuxuu ahaa maxamed ruuraa wuxuu ahaa nin aad baleyrinta la jidha ka dalbada in banooniga cagta loo soo geliyo wuxuu ahaa nin aad u xoogan isku tiirin badan buu ahaa calaamada disootaa dhex bartimaysana dee qof difaaca qof kale nooma kuma taaban karo marka inta badan waxaan iska ilaalin jiray inuu isu kay jiro aad baan ninkaas uga fiijignaan jiray. waa hagaag inta badan markaad kubadda cagta ciyaaraysid dadka ciyaaraha daawada waxay dhahaan cabdirashiid cali qood garoonka markuu ku jiro waa nin aad u xanaaq badan aan isxakameyn karin marka bulshada maxaad arrintaas uga jawaabaysaa? bulshada arrinkaas waa runtood xaqiiqatan sababta maxaa yeelay aniga sbiritkayga sbirit uu dhaafay inta badan waxaan jeclaan jiray gooshayda markaan banooni lagu soo weerara ka difaaco oo aan weerarkayga u dhiiba ama dhexdeeda u dhiiba waxaan jeclaan jiray haddii aysan dhalin inay sigaan marka in faajo baan ka xanaaqi jiray. inta badan kooxaha gobolka mudug kooxa badan ayaad usoo ciyaartay daafaca dhexe inuu kaala dheelo yaad u jeclaan jirta adigu? waxaan u jeclaan jiray inuu igala dheelo laba nin oo aada u degan sayid cumar iyo raaxay. jiilkii idinka horeeyey iyo jiilkiina wax farqi ah oo u dhexeeya mana sheegi kartaa? cabdiqafaarow waan kuu sheegi karaa waxaa noo dhexeeyey farqi aad u weyn. farqiga noo dhexeeyey haddii aan examblekaas siiyo jiilkii annaga naga horreeyey waxay ahaan jireen jiil isku xiran oo haddii ay meel u duulayaan ama ay gobol kale aadayaan ama degmo kale ay aadayaan iscaawiyo oo naadiyaasha kale la iska caawiyo. sbiritka iyo isku xirnaashadooduna aad u sarreeya laakiin jiilkeygii waxaa jiri jiray waxyaabaha tafaraaruqa oo naadi kale inuu caawiyo haduu gobol aadayo way aad bay u adkayd. marka farqi weyn baa u dhexeeya baad leedahay? farqi weyn baa u dhexeeya. maadaama aad kooxaha gobolka qaarkood usoo ciyaartay koox xifaatan kubadeed kaala dhexaysa adi ahaantaada ma jirtaa?
cabdiqafaarow anu waxaan u dheeli jiray humbabaro waxaa ay xafyaaltan kala dhexayn jiray naadiga iyo mayska mararka qaarkood waxa dhici jira ciyaaraha friendly gameka in roosooyin ka dhacaan iska badaa kuwa horyaalka aan wada dheeranay aad baa xafyaaltan nooga dhexeey dadkan waa iskugu jeclay maadaama dhowr koox usoo ciyaartay kooxaha kasoo tegi jirtay dabcan markaad koox cusub imaanaysid dabcan heshiis bay kula soo geli jirtay waa wada xaajoon jirteen xag dhaqaalaad ugu imaan jirtay soomaa kooxahaas cabdiqafaar xag dhaqaalaha ugu imaan jiray guushaada kugu ficneed waayahagi ma xasuusataa guusheedii ugu ficneed waayaha waan xasuustaa waa geemkii koobkii gobolada ee lagu qabtay caasimada garowe laascaana aan wajaanay oo aan uga na roosa laga qaatay caftax tartaraaye oo aan uga badinay 4-2 wagaag maadaama aad burtille noloshaada wax badan kusoo ciyaartay dad badan oo kubadda cagta magac kule sida xasan naafac cali bidig ay ka mid yihiin raggaas gobolka soo maray waxaa ma ka xasuusataa raggaagii burtille aad waqtigiis la soo qaadateen 1-2 aad baan uga xasuustaa waa raggii aan yaraanteeda isla soo dheelnay waxaa ka mid ah axmed carabi difalle oo ugu qoran tahay axmed mire isxaaq baan u malaynayaa waxaa ka mid ah nin la dhaho aji axmed nuur cabdulbaajiyo waxaa ka mid ah dayax waxaa ka mid ah cali bidig waxaa ka mid ah cabdi daahir waxaa ka mid ah cawal fujiiste waxaa ka mid ah cali duguf waxaa ka mid ah dhalinyaro aad u tiro badan wagaag adinkoo magaca burtille wata marna ma dhacda gobolka mudug kooxaha ka dhisan ama qaranka gobolka inaad la dhishaan degmada burtille waa anagoo magaca burtille ku dheelna waxaa nimid burtille waa nimid waa la dheelnay seerabideedii seer aadina sixan la dheelnay 2 jeerba guul baan kala tagnay waan xasuustaa waa 2008 koob gobolada Puntland anoo gobolka mudug matalaya garawa ay nooga beesay 5 wagaag maadaama aad kooxo badan usoo ciyaartay kabtano badanna kusoo maamuleen inuu kabtan kuu noqday adigu kumaad jecleen waxaan aad u jeclaa in halkaan ku xuseeyo saaxiibaan nahay nuur dadka muxuu garan yaqaanaa nuur yare inji macallin inuu kuu noqdo yaa jecleen macallin in ii noqdo waxaan aad u jeclaa oo nin reer xamaasadeed oo aan aad u jeclaa macallin Ilyas Allah u naxariisto gobolku wuxuu lahaa rifriye badan kumaad u aragtay adigu ahaantaada rifriga ugu fiicnaa wallahi saaxiibkii aad aan u jeclaa marna boorteeri ii soo noqday marna waxa weeye albitara ii soo noqday geesoweyne wagaag maadaama aad qaranka usoo ciyaartay wax ma nooga sheegi kartaa sababta markasta xulka qaranka gobolkeena quarterfinalka ugu soo haro cabdiqafaar aad iyo aad baad u mahadsan tahay su-aasha ay weydiisay waa su-aal u baahan in la isweydiiyo qof walba gobolka mudug ama kasoo ciyaaray ama waxgaradana in la weydiiyo aad u mudan cabdiqafaarow sababta in gobolka mudug sanad walba uu ku haro quarterfinalka tusaale yar ahaan haddaan usoo qaato 2002 ma kala xasuusta mid xilliga ahayd gobolka mudug waxay tageen final boosaasa rigoor uga qaaday xilligaa xulka qaranka waxaa u badnaa STG naadiga la dhihi jiray xil walba qaranku uu bixi jiray noo yareer baa waxaan dareemi jirnay marka loo xiraamo qaranku armaytayriyo waxaa ugu badnaa SDG hase ahaatee naadiyaasha kale oo ka dhisnaa gobolka mudug intooda kale way ku qanacsanayeen oo ugu sacbin jireen baawur ingeyra intay shidaalkooda u qaabtaan bay garowe u aadi jireen waan xasuusta dhibaatada ugu badan oo naga haysta waxa weeye in sanad walba gobolka mudug uu ku haro quarterfinal waxaa sabab u ah 1 naadiyaasha ka dhisan gobolka mudug
tobanka naadi oo seeraada ka ah labo macallimiinta loo xusho qaranka saddex kabtanka qaranka loo magacaabo iyo guddiga saddexdaas oo sababtan waxa keenaya waxa ka jira waxa la dhaho naadi hebel intee ka raacday qaran iyo naadi hebel intee qaran iyo naadi hebel baa qaran ku badan iyo naadi hebel baa anaga u badan waxa la ka jira weligiis iyo alihiina gobolka mudug gaari mayo final iyo koob qaado haddii aan laga tanaasulin naadi gobolka mudug haddii la helayo hal naadi oo kumbriga u dhigma tobanka nin leh abka haddii qaranka u qalma in lagu qanacsanaado waxa dhibka jira waxa weeye nin naadi macallin ahaan jiray waa macallin looga dhigayaa qaranka injaalaysi uu galayaa iyo naadi hebel waxa soo duulaya naadiga macallinka u ahaan jiray raggii u talin jiray baa soo duulaya meesha gobolka joogay imaanayaan markaas waxay sameeyaan la tashi sameeyaan tusaale haddaan usoo qaato marka aan ka bedelin laascaano gobolka mudug oo tartaraya urursanaa waxa weeye furaaqaba baa jiray markuu macallin yaasnooyin allah u naxariisto oo la gelinayay oo 9 nin aan ku dheeranay isku mowqifiisu go'aan baan qaadan 9kayga nin laascaano gobolada Puntland waxa ku jira halista ka ah gaalkacyana gobolada Puntland markii nin loo xulo gobolka ugu baleeyinta fiican buu ku jira 9kayga nin mowqif baan hal mar meel ku wada qaadan guushina ku gaar laakiin inta ay ka jidho waxa la dhaho naadi iyo naadi hebel baa waxa iyo naadi hebel baa qaran ku badan meel ma gaari karno waxaan u maleynayaa maanta gobolka mudug waxaa gudoomiyaha sportska ka ah macallin ninkii la dhihi jiray gaabshe cabdinaasir waxaan ka codsanayaa hadduu codkayga dhegeysto in nin naadi macallin u ah uusan macallin qaranka uga dhig in guddi banaanka ka loo soo saaro oo qaranka xula macallin banaankaana in loo keeno qofkii u qalma inuu gobolka waxa weeye hogaami kara in kabtan looga dhigo oo qadiyada gobolka ay ka go'anta marka dhibka ugu badan waxa weeye waa tobanka naadi oo ka dhisan gobolka iyo macallinka loo magacaabayo oo ah macallin naadi u ahaan jiray way faantaan malaya cabdiqafar aadweyn dabcan way dhegeysan doonaan codkaaga fariintaadana way gaari doontaa cabdirashiid adigu waqti xaadirkan kubadda ma ciyaartaa niyo kubadda waan riixaa waan dheelaa oo haaf kuriyaan iska dheelnaa markaan jaanis u helno markaan hadda jaanis aanu hayna haddee bilis baanu cayreen kooxaha yurub adigu kooxda taageertaa waxaan taageeraa barcelona kooxdaas ugu neceb tahay waxaan ugu nibcahay Real Madrid iyo Manchester United noloshada intaan noolaa uma sacadin laakiin ragaan aan kubaddooda u jeclahay baa soo maray sida Zidane Kaka Paul Scholes Fayron rag badan oo kubaddooda aad u jeclahay baa soo maray hagaag su'aashan waxay noqonaysaa manoo sheegi kartaa dream teamkaaga 11 in ka dooran kartaa si wacan oo wanaagsan cabdiqafaar haddii aan ku bilaabo Bortieri waxaan ka dhigan lahaa saaxiibkay Geesaway afar waxaan ka dhigan lahaa Said Umar iyo Cabdirashiid Calaqod duuya tare waxaan ka dhigan lahaa caana geel nin la dhaho iyo nin la dhaho kabo qolof yare dhaxda haddaan u soo noqdo waxaan dhaxda ka dhilsan lahaa nin la dhaho yaasi Norway iyo nin la dhaho Mukhtaar iyo waxaan ka dhilsan lahaa Axmed Jilba nin la dhaho Axmed Carabi labada bal waxaan ka dhilsan lahaa nin la dhaho Sharmaka Cagabadeel iyo Mukhtaar Yare afarna waxaan ka dhigan lahaa nin la dhaho Faaco macallin yaa uga dhigi lahayd macallin waxaan uga dhigi lahaa allah u naxariistee Ilyas waa dream teamkaaga dream teamkee
وهاك magaalada Gaalkacyo mar dhow waxay la rabtaa garoon caalami ah Cawaali Stadium mar dhow wuxuu noqon doonaa green bulshada reer Gaalkacyo iyo maamulka sports gobolka maxaa baaqa ama fariin u diraysa وما شاء الله عوالي استاديوم أنا علف أمانة يلان إن كودلنا وح علف ويا شيء تلك هذا عصب وكره ما علف ويا شيء وحن أتش على هاي أما أن كرتنا ليا وأن أذكر دارميا ما أنت واحد يستان قرون روجا أنا وصومنا مرين قرون كروجا وحقول لي كنا بجح وأن كوفكر كنا كبدو ما يحكي قاضية وكوجيلية مقف قوته بن كوفكر حساب بن كتير لكن ما أنت واحد يستان قرون هذا وناكسن اسكو حرنا شيء اسكو دومنا شو وأن كرتنا لها إيوه إن فيك ستان قبل كمودنا قبل كوب سوق هذا بن ورياض لها وهاك طبعا ويكون يسن دونان سida u aragtaa barnaamijkii ugu dambeyn barnaamijkan aan ku wareysto ciyaartoydii hore ciyaartoydii dhexe ciyaartoydii dambe xitaa macallimiintii gudoomiyaashii sida u aragtaa barnaamijkan barnaamij aad u wanaagsan weeye aad baan ugu farxay markaan arkay waana kaga mahadcelinayaa shaqo loo baahnaa baa noo bilowday ajar iyo xasana ilaahay ka siiyo abaalkeedana rabbi meel fiican ka siiyo halkan waxaan kaloo aan aad uga salaamayaa jiilkii iga horeeyay iyo jiilkii iga dambeeyay iyo jiilkaygiiba waxaan leeyahay guul iyo gobonimo baan ku rajaynayaa waxaan si gaar ah halkan iyadana aan ka salaamayaa aanana ku boorilayaa waliba ilaa hadda kubadda inay dheelaan aan rajaynayaa in aan aad u jeclahay kubaddiisa laba nooc aan aad u jeclahay kubaddooda nin la dhaho Nuune Suuley iyo nin la dhaho Axmed Jilba oo labaduba aad aan u jeclahay kubaddooda oo dhan walba markaan ka fiirsho aan isdhihi karo waa ragga qaabka aad waxa weeye aad u jeceshahay weerarada u dheelo isbiirad iyo leh aragti iyagana waxaan leeyahay aad baan islaamiya sida aad ahaan jireen weligii si ahaada iyagana leeyahay aad baa mahadsan tahay intaas waxaan nooga ka wareysi aan kula yeeshay waqtiga muhiimka aad siisay oo ku mahadsan tahay waxaan ku leeyahay habeen waxaan ku leeyahay wanaagsan qaar badan baan ku rajeynayaa assalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله وبركاته عبد الغفار آد بان أمها سلطاي